dhammaan dadweynaha kala duwan ee kasoo qayb galay kulankeena dooda ah ee aynu kagu falaqeynayno marin u helidda cadaaladda ee gobolka marka loo eego xuquuqda asaasiga ah. Kulankeena waxaa inoo soo qabanqaabiyey legal aid clinic oo kaashanaya wasaaradda cadaaladda Somaliland. Waan idinka mahadnaqaynaa sida sharafta leh qiimaha leh aad uga soo qayb gasheen bulshada qaybaheeda kala duwan isugu jirta aqoonyahanka dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Togdheer. Barnaamijkan waxaa muddada inta uu socon doono inala falaqeyn doona ama inala joogi doona 3 xubnood oo kamid ah bulshada. Qofka koobaad waa isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer, garyaqaan sare oo ah garyaqaan madax bannaan Axmed Yuusuf Cabdi iyo Nimco Qani Cabdiraxmaan oo kamid ah arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya ee gobolka Togdheer. Barnaamijkan uu caawa intaas u daaran yahay intaynaan guda gelin waxaan ku furan doonaa ayada quraanka Yaxya ayaynu dhiibi doonaa insha Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. intuu barnaamijku socdo mas'uuliyiinta kala duwan iyo aqoonyahanka kala duwan ee barnaamijka kala qayb qaadan doona waxay weydiinayaan su'aalo kooban. Sidoo kale waxaan bulshada siin doonaa chance ay su'aalo ku weydiiyaan ama ay aragtidooda ka dhiibtaan barnaamijkan lagu falaqeynayo. Su'aasha koobaad si guud baan u weydiin doonaa muwaadiniintu miyay u siman yihiin fursadaha bulshada sida siyaasadda dhaqaalaha ee ka jira gobolka ama guud ahaanba Somaliland, tusaale ahaan naafadii dumarkii iyo dadka la haybsooco marka loo eego xuquuqda madaniga ah. Marka isuduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Togdheer ayaan su'aasha u horeysiin doonaa u dhiibi doonaa. su-aasha aad weydiisay ee miyaa loo siman yahay xuquuqaadka dadka aad soo sheegtay haa way u siman yihiin. aad baan idin salaamayaa mudanooyin iyo marwooyin iyo dhalinyarada qiimaha leh aqoonyahanka gobolkaba. kulay su-aasha uu weydiiyey waxay ahayd miyaa loo siman yahay xuquuqda muwaadiniintu miyay u siman yihiin gobolka. kulay agaasimo wuxuu nagu yiri haa way u siman yihiin, laakiin anigu aragtayda ma qabo inay u siman yihiin. sababta aanay ugu sinayn anoo sababeynaya ama hoos u sii gelaya waxaan odhan karaa marka aynu bulsho leenahay bulshada way qaybo badan tahay. waxaa ku jira dadkii naafada ahaa, waxaa ku jira haweenkii, waxaa ku jira maxay ahaday dhalinyaradii aqoonyahanka ahayd. bulsho markaynu leenahay waa bulsho koobsanaysa qaybo fara badan. qaybaha fara badan maxay ahayday ee koobsanaysa waxa weeyaan marka ka soo qaadaba dadkii naafada ahaa. dadkii naafada ahaa dad bulshada ku dhex jiraan, dadkiina maxay ahayday lama siina cadaalad iyo ma helaan. sababtaan u helin waxa weeyaan kadib imka loo eego goobii waxbarashada kale marka imka ardayga maxay ahayday naafada ahi markuu jaamacadda yimaado kale ninka fooqa dhisanaya waxa uu dhistaa guri dheer umuu talagelin meeshuu soo marayay qofka naafada ahaa ee isagu baahan kale iyo hadaf kale. ninka maxay ahayday xafiiska samaysanaya wuxuu uu samaystaa xafiis ugu talagalay dadka caafimaadka qaba, ugumuu talagelin dadka maxay ahayday xanuunsanayo kale ama dadka naafada ah meelo gaara oo ay ku sugaan ama ay ka soo gali karaan. waxaan odhan karaa siyaasaddiyo kale waxaa jira bulsho markaynu nahay haweenkii waxay ka mid yihiin bulshadii waliba qaybta ugu laxaad kale way ka mid yihiin. haweenkii siyaasaddii si cadaalad oo ma helaan. waxa u horeeya ee markiiba la keenaa waxa weeyaan haweenku maxay ahayday waa haweeno reerkii nin buu keensanaya soo sharaxanaya. halkaas ninkii gabadhii dumarku way qaban karaan waxaan madaxweyne ahayn diintana way ogashaa, laakiin bulshadeennii uma ogola. wax dowladuna wax kootaa uma ay xidhin maadaama ay aanay bulshadii qaybaheedii kale aanay ogoleen. waxaan odhan karaa maxay ahayday marka la joogo maxay ahayday goobaha xafiisyada dowladda xafiis kasta waxaa haysta rag baa jooga. inkastoo iminka haweenku aynu odhan karno waqtigan way soo kordhayaan, laakiinse waxaan odhan karaa iminka haddii xafiiska cadaaladda kale la yimaado lama helayo inan xeer ilaalintii joogta. inantii iminka reebka kusoo dhaco kale mii laga keena ama magaalada laga keeno kale inankii uma warrami karto. haddaan isku dayo inaan su-aasha si kooban jawaabta aan uga bixiyo si kooban waxaan odhan karaa fursadaha ka jira guud ahaan gobolka marka loo eego dhinaca macnihiisa fursadaha madaniga looma sinna. waxaanan aada u taageersanahay ama aan xoojinayaa dooda ma garanaysaa walaashay. tusaale ahaan haddaynu ka eegno macnihi civil rights waxyaabaha la dhaho waa xuquuqaadka madaniga waxay ku yaalaan dastuurka jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale xeerarka caalamiga ma garanaysaa damaanad qaaday ay ka mid tahay
xeerka caalamiga ah baaqa caalamiga ah international conference of civil and political rights tusaale ahaan inaan dumarka wax kasta oo la qaybinayo marka tusaale ahaan hadday xil la magacaabayo in laga eego dhinacyo badan for example ma ku jiraan macnihii dadka bulshadii minorities groupeska marka la eegayo xuquuqaadkoodii ma helaan magacaabiso marka la sameynayo xilal marka la sameynayo ma ku jiraan sidoo kale dumarkii markii macnihii saas oo kale loo magacaabayo ma ka dhex muuqdaan macnihii ma tahay muraayad la iska daawanayo cid kastaaba iska helayso marka taasina waxaad moodaa caqabad aada u weyn inay ka jirto weli oo aan loo sinayn fursadaha hadday noqoto ma garanaysaa dhinaca politicalka ama siyaasadda iyo dhinacii dhaqaalaha labadaba oo ad arkayso inay ma garanaysaa cid gaara gacanta istii lagu jirto marka hore xuquuqaad marka la yidhaahdo waxaa qeexay dadku xuquuqaadka ay leeyihiin ilaahay subxaanahu watacaala oo waxa weeye hadduu dumar yahay iyo hadduu rag yahay iyo hadduu dhalinyaro yahay iyo hadduu tijaar yahay noocuu yahayba marka hore shareecada islaamka ayaa qeexday oo qof walba xuquuqaadka uu leeyahay iyo halka uu kaga aadayo u tilmaamtay marka labaad waxa aynu leenahay oo dejisanay xeerar dhaqangal ah dastuurku u sarreeyo marka hoos looga daadegana wax waliba ay faraceeda leedahay oo tilmaamaya oo tibaaxaya qof waliba halka uu kaga aadan yahay xuquuqaadkiisa ma jiro qof bulshada ka mid ah oo la iska hortaago xuquuqaadkii dastuurka u damaanad qaaday iyo tii shareecada u damaanad qaaday mid lagu dhiirigeliyo mooyaane rag iyo dumar mid la isku garab taaga mooyaane waxyaabaha kelmadaha la soo qaatay waxaa ka mid ahaa xafiiska xeerlaanta oo kale dumar ma joogaan way joogaan waaxda carruurta iyo haweenka way u joogaan oo dumar baa u jooga dacwadaha ooga oo gala oo xeerlaaliya goobaha baaritaanka ee CID-da waa u joogaan waxay u joogaan goobaha caafimaadka qaar caafimaadkooda suga oo u tababaran baaritaanka reebka iyo wixii la mid ah baahikoob baa ka mid ah waxay degan tahay dhakhtarka weyn waxay la shaqaysaa CID-da haween kasta oo ku dhacay tacadiga loo yaqaano muxuu ahaa reebka waxay ula shaqeeyaan si qaab loo tababaray saldhigyada ayay joogaan marka waxa weeye waxaan ku soo ururinayaa shareecada ayaa u damaanad qaaday waxaana u tilmaamay dastuurkeenna lamana arag oo ma dhacdo qof xaq uu leeyahay oo dastuurku u damaanad qaaday aynu iska hortaagno oo la yidhaahdo qofkaasi xaq uma laha waxaa jira waxaa la yidhi jaamacaddu dabaqiyay ku jiraan Burco University waa jaamacaddii dawladda ma dabaqba waxa weeye dabaq maahe waxay u dhisan tahay qaabka caadiga ah u dhisan tahay meel ay kareysatay taas kuma jirto laakiin waxa weeye jaamacadda dawladdu kii naafada baa dhigan kara ka yar baa dhigan kara ka gaboobay baa dhigan kara wadulka waasaca waxa loogu talagalay qof walba inuu xaqiisa ku helo waxbarashadiisa uu ku guto dugsiyada dawladda wad aragteen waxa weeye waa mid walba waa dugsiyo ku haboon waxa jira dugsiyadii dhagoolayaasha jira oo waxa weeye la dhiganayo ay ka soo baxeen dad dhagoolayaal ah waa raadin la raadinayo oo loo fududeynayo in xuquuqdoodii helaan dadka noocaasi marka waxa weeye waxa aan ku sababaynayaa marka koobaad lama hayo qof xuquuqaadkii dastuurka u damaanad qaaday la iska hortaagay marka labaadna hadday waxbarasho tahay iyo hadday ganacsi tahayba waa loogu talagalay oo waa kuwa dhagoolayaasha dhiganaya xaqooda helaya waa kuwa jaamacaadkii dhulka ka samaysana aan la odhanaynin qofka Koreaanka dabaq sare kor xagga cadaaladda haddii aanu soo baydhana rag iyo dumar waa laga wada qayb qaataa arrimaha cadaaladda xafiiska xeerlaalinta dumar baa jooga maxkamadaha dumar baa jooga oo ka shaqeeya goobaha caafimaadka dumar baa ka shaqeeya xafiiskayga aan joogo anigu mas'uulka ka ahay in qaranka mas'uulka uga haya wasaaradda cadaaladda way joogaan dumar iyo ragba waxa ay qaabilsan yihiin waxa xeer ilaaliyaha ninka ahi uu qaabilsan yahay
dacwadaha ayay galaan qaranka ayay dhibanaha ayay wakiil ka yihiin qarankay wakiil ka yihiin way doodaan way dacwadaha ay ogaan sidaa ninku uu ogayaaba iyakuna uu ogaan bawarka ayaa waddaasi leeyihiin isudo waxaa sheegtay inay jaamacadda burco ku jirto dhul siman aanay ku jirin kuwa kirista kuwana kirista meena jaamacadda ka mid ahaa inaanay jaamacadda wax lagu baranaya hayno qayb ka ahayn jaamacadda burco maya waa ka mid laakiin kambaska jaamacadda burco waxa weeye maaha dabaq kambaskeedu waxa weeye dabaq maaha waa meel cid waliba dhigan karto ka gurguuranaya geli karo ka idinka go'aanina uu geli karo faracyo way jiraan dabaqyahoo dee ay karaysato ay ku jirto laakiin waxa weeye siyaasadda dawladda marka aynu ka hadlayno goobta loogu talagalay jaamacadda burco ee kambaskeeda ah ee waxa weeye loogu talagalay maaha dabaq waa meel ummadda u siman oo qof waliba u geli karo xaqiisana ku gaari karo fakal walbana lagu qaato sidee kor lagu qaadi karaa nidaamka cadaaladda ee Somaliland kariiqaanka ayaan ku horeysiin doonaa si guud nidaamka cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland horta waxa qeexaya dastuurka iyo xeerarka kale ka farxama waa nidaamka koobsanaya maxkamadaha xeer ilaalinta booliska ma garanaysa iyo ama sidoo kale saldhigyada lagu hayo ay kamid yihiin jeelasha iyo ma garanaysa iyo meelaha dib u sixitaanka lagu sameeyo waa nidaam saa u taxan marka haddii su'aasha ka joogna sideeba kor loogu qaadi karaa kow horta iyada booliska la tayeeyo sidoo kale in iyadoo la tayeeyo meelihii baarista soo ahaan la keeno mashiinada forensic machines oo soo ahaan Somaliland aadan moodo in kiisaska sometimes la doonayo laga go'aan gaaro forensic machines kala dhaho waxyaabaha ku saabsan oo kale Nairobi loo diro marka baahiyahaas kale si loo gudbo waa inay dawladdu keentaa marka mashiinada forensic magarasa machines la dhaho oo markaa ku shaqaynayaan dadkii shaqada lahaa sida magarasa waxii baarista oo tusaale ahaan haddii kiis ku fiisiyo dhaco ama kiisaska tusaale ahaan kale ee dhacay haddii qof yar la isku qabsado cidda dhashay si loo kala cadeeyo macni forensic machines buu noqonaya macni halkan de magarasa cidda dhibaatada geystay ama waxa maray moogtay sidaadeeda waxa loo baahdaa in la geeyo Nairobi iyo meelo kale ka sheeya deetana jawaabta la sugo bilo ama magarasa wiiga saas oo kale laakiin si haddii magaranaysa lagu tayeeyo dad tababarana loo keeno markiiba waxa nidaamkii cadaaladdu waxay noqonaysaa inuu noqdo mid degdeg magaranaysa maxkamadii iyo xeer ilaalintii iyo magaranaysa baarista ay iskugu xidhmaan oo kiisaskii ay hore u dhamaadaan sidoo kale waxyaabaha aynu nidaamka cadaaladda kor loogu qaadi karo waxaa ka mid ah iyada laftarkeeda in xabsi ka weecin la sameeyo for example in caruurta yaryar ee jeelasha lagu xidhayo ee 14 jirada ka hooseeya inaan jeelashaba la geyn nidaamka sharciguna kaama qabo wixii 15 jir ka hooseeya maxkamad marnaba lama geyn karo lamana xukumi karo sharciguna wuu ka soo horjeedaa marka waxa weeyaan in diversion la sameeyo wasaaradda cadaaladda agaasimuhu fadhiya waxa jirta policy dhan oo la yiraahdo bolisiga xabsiga leexinta marka caruurta yaryarada dambiga geystay ama sharciga khilaaftay waxa la marinayaa bolisiga la yiraahdo xabsiga leexinta oo nidaamkiina cadaaladda kor u qaadaya oo caruurta cadaaladooda siinaya magaranaysa caruurta waxbarashadii sii marayaan oo magaranaysa waxbarashadiisa ay sii wataan oo magaranaysa aan jilash loogu xidhan dadkii waaweynaa dambiyada geystay loogula xidhin nidaamka cadaaladda si guud maxkamadihii oo la tayaa ka mid ah oo hadday noqoto xagga nidaamkan casriga adduunyada u guurtay qalabka IT hadday noqoto waxyaabaha si magaranaysa looga gudbo maanta dee karaanigii u qorayay 1960kii aanu qorin inankii maanta laakiin se la keeno dee hab dee magaranaysa maqal iyo muuqaalo maxkamadda adduunyada lagu daawada baa jirta marka in la tayeeyo maxkamadihii la tayeeyo in magaranaysa xeer laalimihii dambiga oogay laftarkooda si joogto ah loo dhiso magaranaysa aqoontoodii xagga magaranaysa sharciga iyo si guud si ay ula jaan qaadaan magaranaysa adduunyadii sharcigana u fuliyaan ugu dambeyntii waaxda la dhaho correctional oo wasaaradda cadaaladda hoos timaada oo ay jeesha aynu naqaano inagu in iyaga laftarkooda la tayeeyo ayna noqdaan dee goobo dadkii marka la xidho ee dambi geystaan ay kala soo noqdaan iyagoo qaloocan oo bartii ka bilaabaya kii tuugaha tuugnimadiisa ka bilaabaya kii walacaasiga bartiisa ka sii wadayo laakiinse waa inay noqdaan goobo magaranaysaa correction macnihi saxitaan qofkii isagoo fiican oo magaranaysaa dembigiina dee laga soo maydhay indho cusub wata magaranaysaa maanta dee adduunyada sidii u hadlay hadduu tuug ahaa tusaalahaan wax xadayay la yaabayba odhan maxaa berigaa lagu xidhay tuugnimadaas maxaad u geysatay bal ka leexo maanta waxaa sameeya haddii magaranaysa lasoo baray farsamadaada gacanta ku shaqayso haddii cilmi kale lasoo baray cilmiga ay kale ku shaqayso marka inay waaxdan iyadana lasii xoojiyo oo magaranaysa bajado fiican loo sameeyo korna loo sii qaada baan qabaa
muhiimaddu waxa weeye marka la doonayo cadaaladdu inay toosto ama la horey mariyo in dhammaan xeerarka loo dejiyey lagu dhaqangeliyo oo loo raaco. midda labaad, cadaaladdu haddii la doonayo inay horey marto waxa muhiim ah inay dadweynaha qudhoodu qayb ka noqdaan oo ay cadaaladda ku soo barbaaraan oo ay guryahooda ka soo bilaabanto oo waxa weeye dadweynuhuna ay u hoggaansamaan. iyadana ama agab ha noqdo ama aqoon ha noqdo nidaamkaa u dejisanee xeerarka ugu qoran loo dhammaystiro oo waxa weeye lagu shaqeeyo. taa ayaa lagu horumarin karaa haddii ay xabsi tahay iyo hadday maxkamad tahay iyo hadday saldhig boolis tahay, haddii ay qareen tahay, haddii ay tahay wasaaradda cadaaladda, in hareeraha la isqabsado oo waxa weeye ay ku wada shaqeeyaan, xeerkaa lagu wada shaqeeyo oo sidaa loogu wada shaqaynayo laga sii horumariyo ayaa cadaaladdu ku toosisaa oo ku horumaraysaa oo waxa weeye ay hore ugu soconaysaa. cadaaladda marka la doonayo in la horumariyo waxa weeye cadaaladdu waa wax qoran hortay oo waxa weeye diyaarsan oo ama xeer ku cad ama shareecada islaamka ku cad. waxa haddaba loo baahan yahay marka la horumarinayo wax kasta oo xeerkaa ugu qoran, hadday tahay dhismayaal, haddii ay tahay muxuu ahaa qaybta caruurta, haddii ay tahay muxuu ahaa qaybta dadweynaha, in laga wada qayb qaato in cadaaladda halkeeda la gaadhsiiyo oo dadkuna ay u hoggaansamaan oo bulshada ay wada barato oo ay bulshadu socodsiiso oo waxa weeye ay dadku ay dadweynuhuna ay u hoggaansamaan. bulshada waxa baraya cadaaladda waxa baraya marka koobaad bulshada waxa baraya cadaaladda oo gaadhsiinaya ilaahay baa subxaanahu watacaala sheegay inay dadku kitaabkooda ayay cadaaladdu ugu taallaa inay aqoon u yeeshaan kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala. marka labaadna xeerarka dalka inay aqoon u yeeshaan oo ay bartaan oo dadku ay galaan kulliyadaha sharciga. taas ayay ku baranayaan oo dhallinyaradu ay ku dadaalaan inay aqoon u yeeshaan ilaahay kitaabkiisa iyo xeerarkan waddanka u dejisan. annaga iminka waxaa qorshayaasha noogu jira inaanu samayno barnaamijyo ka baxa idaacadaha oo dadku ay ka dhegaystaan shuruucda iyo waxa weeye shuruucda ay ka dhegaystaan oo ay ka qaataan wacyigelin ku saabsan arrimaha shareecada ama arrimaha shuruucda ama xeerarka. qaabkaasoo kale hadda waa noo qorshaysan tahay sanadaha soo socda inaanu dadka gaadhsiino. waxaanu kale oo samaynaa xabsiyada dadka ku xidhan waxaanu siinaa wacyigelin, waxaanu siinaa aqoon waxbarasho. waxa aad ogtihiin xabsiga Hargeysa waxa lagaga qalin jabiyey mustawa heer jaamacadeed. xabsiga Burco waxa quraanka kariimka ku dhameeyay maxaabiis badan, hadda waxa dhexda ku jira maxaabiis badan. waxa weeye waa qayb ka mid ah baritaankii ama gaadhsiintii cadaaladda. laakiin hadda tii bulshada sidee loo gaadhsiinayaa waxa noo qorshaysan inaanu idaacadaha ka sii dayno barnaamijyo dadka lagu barayo shuruucda. waxaa oran karaa waxaa kor loogu qaadi karaa cadaaladda Somaliland. horta wax kasta meel bay ka bilaabaan, meelna way ku dhamaadaan. dadkii iyagu cadaaladda inoo hayay in cadaaladda bidaynay haddii maanta aanay u arkayn in cadaaladda Somaliland dhammaystirnayn, waxaan u malaynayaa in dadka kale ee dibadda ka joogaana ay u arkayaan inaanay cadaalad helaynin. maadaama oo aynu nahay inagu bulsho islaama, kitaabkeena qur-aanka baa cadaaladda oo dhan ku taala. waxaan arkaa goobaha maxay heday cadaaladda maxay looga baahan yahay imka isu dawayaasha kale, dadka xeer laaninta kale inay xeerka jabsanayaan iyaga oo aan xeerka sidooda ugu dhaqmaynin. waxaa kiis baa soo dhacaya, dabadda ku soo dhacaya, maxkamadda la keenaya, maxkamaddii kiiskii iyadoo arkaa in maxay heday gacanta ay ku hayaan oo arkaa in khalad uu yahay ayay maxay heday ogolaanayaan in ay laaluush qaataan, dabadeedna saas oo kale qofkii kusii daynayaan. qofkii dhibanaha ahaa waxaa loo duleynaya isagoo marka hore dhibana ahaa oo dhibaato u yimi in ay dadkii uu cadaaladda maxay heday uu soo biday in iyaga dhaafsadaan wax yar oo hoosta loo geliyo. taasna waxaan oran karaa inagu marka aynu bulshada nahay inaynaan ogolaanin cadaalad darrada. sababta inaan u ogolaanin waxay tahay marka aynu
maxay ahayd gudi dhaqameedkeenii odayaasheenii cuqaasheenii ay iyagu qudheedu ay gacan siiyaan cadaalad darrada markaa bulshadii waxay ku jirtaa laba gamcood oo dhexdood dowladda iyaduna qaadanaysa laaluush oo cadaaladii burburinaysa oday dhaqameedkii iyaguna maxay ahaday xeerkii jajabsanayo odhanaya maxay ahaday xeer jajab baanu leenahay dibadda noogu soo saara marka maxkamaddu haddii kitaabka ay wax ku xukumayaan waxaan aaminsanahay in aan waxba khaldanaadeen ciidankana ay ku tababaraan in ay maxay ahaday maxkamaddu ay xukumaan ninka ciidanka ah ee intuu qof qabto u hanjaba ee buquujiya ee isagoo dareeska sita ee hadhowna markuu qofkii halkan luuqa yar madow kala laabto qofkii wax yar u dhiibay sii daynaya waxaa looga gudbi karaa goobahan cadaaladda in soo doonana maxkamadda oo kale iyaga oo maxay ahaday bulshadii way gudida dhaqanka iyo cuqaasha waxay ka mid yihiin bulshadii Soomaa in ay u sheegaan wixii xeer qalad kastoo dhaca xeer buu leeyahay Soomaa lagu ganaaxo in xeerka lagu ganaaxayo oo aan maxay ahaday qofna inta meel la fariisto waa inuu raali ka mihi maanta marka wax la isu sameeyo adeerkay ugu dhaahdo maxay ahaday in hebel wayaan awoogoon bari wax wada cun lahayn ama awoogii baan bari waxa ku sameeyo leega cafiyaadiga laga cafiyo inuu awoogii dhintay mihidi anu waa noolahay cadaaladina waan arkaa markaan xaq waxaan u leeyahay cadaaladda ama kitaabka ama xeerka qoran in laygu mariyo laakiin xaq uma lihi in qof igu jureeyo ama igu qasbo in anigu aan u duleysmo tadaba oo dhintay waxay xeer u lahaayeen horta waxaa jirta si guud nidaamka cadaaladda si loo tayeeyo horta inuu waxa la yiraahdo inclusivity ma garanaysaa uu jiro ama macni inclusivity waxaan uga jeednaa dhammaystirnaan macni nidaamkii cadaaladdu inuu dhammaystirnaado si guud oo in laga helo tusaale ahaan beelaha gabooyo oo kale ma garanaysaa haweenkii laftarkoodii macni in lagu daro oo ma garanaysaa nidaamkii cadaaladda ay iska dhex arkaan hadday xeerlaanintii noqoto lagaga soo daro hadday noqoto tusaale ahaan iminka beelaha gabooyo oo kale dee gobolka oo kale waxaan odhan karnaa ma jiraan xeerlaalayaal oo kale gobolkii dijooga oo kale ma garanaysaa hadday noqoto maxay tahay garsoorayaashii ama xaakimiintii ma garanaysaa maxkamadaha fadhiya in iyaga laftirkooda la magacaabo oo ma garanaysaa iska dhex arkaan macni waa inclusivity ama dhammaystirnaan waxaa jirta iyaduna qodob ah si guud inta kor loogu qaadi karo dee waxaanu inagu u isticmaali jirnay ma garanaysaa ka awow nidaamka saddex nidaam bay horta Soomaaliland raacdaa marka laga hadlayo nidaamyada cadaaladda si guud kow horta waa xeer dhaqameed waynu isla naqaanay ka oo kaynu ka isticmaali jirnay iyo xeerkan nidaamka ma garanaysaa systemkan cadaaladda maxkamadaha iyo ma garanaysaa iyo systemkan kale ee shareecada saddexdaa waynu raacnaa marka in saddexdiiba la xoojiyo oo sida loo xoojinayaa tusaale ahaan nidaamkeena xeerka dhaqameedkeenu naqaanay inaan dadka ka wada guurin taasi waxay culays ku keenaysaa maxkamadihii inay ma garanaysaa kiisas fara badan yimaadaan oo ma garanaysaa cadaaladii daahdood ma garanaysaa kiisaskii maxkamadaha aad u yimaadaan in odayaashii inta la tayeeyo guurtida ahaa dabadeetana wax allaale wixii kiisaskii khilaafaadka maxkamadaha kusoo badan lahaayoo dhan imika nidaamyada jiro oo la dardargelin u muuqatona ma garanaysaa runtiina aan aad u soo bogaadinayo in gobolada bariga imika aad moodo in xarumo khilaafaad ma garanaysaa madax bannaan la samaynayo dadkiina ay ma garanaysaa si kiisaskoodii loo xaliyo oo tusaale ahaan laba qof baa waxay isku qabsanayaan kiis madani oo lacag bay isku haystaan tusaale ahaan oo kale qofkana wuu qirsan yahay kan kalena lacagtii ma garanaysaa xilliguu ku bixiyay baa la garanayn dabeetana maxkamad bay isla tegayaan dee maxkamadan intii qofkan lacagta ku bixin lahaa $1,000 hadduu ku lahaa waxba laga yaaba wax ka badan inay kaga baxday laakiinse haddii dhexdhexaadin ay guurtaasi dhexdhexaadiso tirado waradna 3 bilood baan ku qabanaa ama 4 bilood lacagtaa ku keen waradna waad ka sugaysaa iyo intaasaad ma garanaysaa waqtigaasaad noo qabanaysaa dabeetana labadii qof isla ogolaadaan macnii waxay keenaysaa in nidaamkeenii cadaaladii aynu awalba isticmaali jirnay inaynu sii xoojino isaga laftarkiisa oo dadkii ay aanay macnii maxkamadihii aanay aad ugu soo kiisasku kusoo badanin si haddii kale hadday kiis badan ay maxkamadaha yimaadaan the more delay justice ma garanaysaa cadaaladii baa raagaysa kiisaskii baa raagaysa aynu aragno gariiqan axmed waxa uu sheegay inaanay cid xeerlaalin oo ka tirsan beelaha gabooyo lahaybsocaanay ka shaqayn xeerlaalinta gobolka hadday jirto arrintaasi maxaa sababay anigu xafiis baan joogaa shaqaalahayga bayroolka waxaa ka mid ah dad gabooyo ah waxaanan aaminsanahay dee ilaahay baa keenay oo mansabka ilaahay baa u qoray marka waxa weeye dee waa mansabka ilaahay baa qoray haddii se laga tegi waayo waxaan leeyahay way joogaanoo kaygaba shaqaalaha bayroolka qaar ba xeerlaalintu waxa weeye waa xafiis ballaadhan oo waxa weeye shaqaale sare iyo shaqaale hooseba leh markaa dee dadka anigu ma odhan karo kaasuna waa reer hebel kaasuna waa reer hebel kaasuna waa reer hebel mana aha xafiis aniga hoos yimaado shaqaalihiisu marka hore way ka dhalan kartaayo marka hore waxa weeye horta waa xaq bini aadmi deyntu marka hore
deyntu marka hore waa xaq bini aadmi waxa ay xaq u leedahay maxkamaddu qofka waa loo yeedhay yeedhis baa la sameeyaa yeedhista hadduu ku iman waayo dee waaran baa xigaya waa la qabanaya waa la soo qabtaa marka way jirtaa waa la soo xidhay qofka haddii uu dee amar diidda sameeyo iyadoo deyn lagu leeyahay haddaad amar diidda samayso dee waa la qabanaya qofka marka hore waxa uu ka mid yahay reebku kiisaska ugu culus ee ciqaabta ah ayuu ku jiraa marka labaad waxaa u xil saaran oogitaankiisa xafiiska xeer ilaalinta oo qaranku uu u wakiishay waxa awood u leh inuu oogo xeer ilaaliyaha horta way waxa ay gacanta ku hayaan bulshada inay cadaalad ku hogaamiyaan bulshadiina kuma kalsoonaanayso haddii kiiskii anigu aan la tegey la arko in cadaalad darro lagu xukumo marka waxaan odhan karnaa bulshadu laamaha cadaaladda majority kuma kalsoonaan su-aasha jawaab kooban haa waynu u baahannahay iminka waxaa socdaa mar waxa la dhaho justice reform in nidaamkeena cadaaladda dib loo eego wasaaradda cadaaladda oo kale dadaallo kale wadaa way jiraan run ahaantiina waa loo baahan yahay in la tayeeyo nidaamkeena cadaaladda dib loo eego macnii kor loo qaado hadday noqoto dhinaca macnii cadaaladdu aad bay ballaaran tahay waxaa soo hoosgelaya booliskii baa soo hoosgelaya waxaa soo hoosgelaysa asluubtii baa soo hoosgelaysa maxkamadihii xeer ilaalimihii goobihii caafimaadka laftarkooda ma garanaysaa marka si guud waxaanu u baahannahay inaynu reform ku samayno hadday noqoto xagga shuruucda loo baahan yahay oo kale magaranaysa la dardargeliyo oo magaranaysa imika waxaa jira xeer la yidhaahdo free legal aid magaranaysa ama xeerka kaalmada sharciga heer qaran xeerkaasi labadii sano intaan ka warhayay ugu dambeysay drafting buu ahaa wasaaradda cadaaladda ayaana gacanta ku haysa wuxuuna hor yaallaa filiya imika xeerkaasoo dhammaystiran golaha wasiirada xeerkaasoo kale haddii magaranaysa inta golaha wakiilada la geeyo la ansixiyo uu xeer noqdo imika maaha xeer waa drafti marka golaha wakiilada uu ka gudbay madaxweynuhu saxiixo uu xeer noqdo insha allah waxaan fili doonaa inuu noqon doono free macnihi waa xeerka kaalmada sharci heer qaran waxaa jira maxay ahaday cadaalad darro ka dhacda bulshada dhexdeeda iyadu taasoo hore usoo sheegno ahayd tii maxay ahaday kiiskii maxkamaddu ay dibadda ugu saaraysay dadka maxay ahaday xeer dhaqameedka oo kale inkastoo in badan xeer dhaqameedka lagu shaqeynaya laakiinse waxaa jira qofka dhibanaya inuu isugu jiro iska leeyahay xeerkiisu ugu jirayo maxay ciqaabtiisu maxay ahaday cadaaladiisu ugu jirayso maxay ahaday maxkamadda oo maxay ahaday wixii uga yaala dembigaa ku dhacay maxkamaddu ay iyadu wixii ay ciqaabi marinayso iyo inuu isagu raalli ka noqdo in dibadda loola baxo xeer cid hore dejisatay maxay ahaday loo adeegsado amni xumo ma jirto oo amnigeena waa la furiyaa laakiinse waxaa jira waa cadaalad darro waxay ku leeyihiin kaalin weyn oo muhiima maadaama ay bulshadan maxay ahaday u dhaqaaqda cadaaladda aan majoritygooda intooda badan ay frontier yihiin ama sidii cadaalad loo heli lahaa iyagoo ay iskooda isku xilqaamaan sida garyaqaanada kale badankooda oo majority aanay meelo badan ka tirsanan intooda badan laakiin ay doodaan waxa aan odhan karaa boos muhiim ayay ugu jiraan bulshada rayidka ah ee maxay ahaday dibadda ka jooga iyaga cadaaladda waxay soo helaan dad badan oo cadaalad darro ku dhacdo way u doodaan sida maxay ahaday dadka dibadda ka jooga maxay ahaday goobihii cadaaladda sida maxay ahaday dadka miyadoo kala jooga ee aan soo gaari karin maxay ahaday maxkamadaha waxaa jira dad badan oo inaga ah oo bulshadeena ah oo dibadaha ku tabaaraysan meelaha dibadda aan maxay ahaday si fiican u garanaynin meelihii ay u mari lahayn sharciyadooda laakiin haddii qof ay soo gaadho in qofkaasoo maxay ahaday garyaqaana ay soo gaadho in arrinkaasoo kala dhacay inuu isagu goobaha cadaaladda keeno inuu wadadii tuso sida dadka waxaa jira iminka ina nasiim leehdo garyaqaanada oo mar burco timi waxay u timi qolo maxay ahaday reeb ku dhaco kale qoladii berigii dhaweyd inantii la dili jiroo kale waxay markaa ay tusaysay iyadoo arrinkaasoo kale dee arrin ballaaran la wada arkaybaha laakiin waxa ay door bidaysay doorkeeda haweennimo inay kaga qayb qaadato garyaqaanka ayaan hal su-aal weydiin doonaa iyo nimco iyo sidwaha saddexdaba su-aashaasaan dhex dhigi doonaa heer intee leeg buu gaadhsan yahay baa la odhan karaa xorriyatul qowlka gobolka togdheer ama guud ahaan somalilan ma garanaysaa heerka tusaale ahaan xadhiguu marayo waxaa jira warbixino la daabaco
oo ay dadku heli karaan oo magaranaysa xarumaha xuquuqul insaanka tusaale ahaan madaxa bannaan qaarkood daabacaan oo ay sheegaan magaranaysa xagga u marayo heerka magaranaysa sanadka dhaca tusaale ahaan xarunta xuquuqul insaanka madaxa bannaan oo kale waxay sheegtay sanadkii hore in xadhig aada u fara badan nambar aada u fara badan dad la xidhay magaranaysaa iyagoo dhiibanaya ra'yigoodii cabirayana magaranaysaa ra'yigooda sida xorta ahaa ay xadhig ku mutaysteen marka runaantii waxaan oran karnaa taasoo kale in rikoordhadaasoo kale dib loo eego lagu noqdo ayaa lagu ogaan karaa hadba inta ay marayso markaa xeerka gobolku tan gobolkana si gooni ah anigu hadda taa kama jawaabi karo waxaa taa iga xog roonaan kara qof gobolkii magaranaysaa jooga oo magaranaysaa gobolkii togdheer deegaanku ah oo jooga ayaa markaa taasoo kale su-aashaas kale ka jawaabi kara waxaana filayaa in agaasimaha iyo nimcoba ay taa su-aasha ka jawaabi doonaan xidhitaanka waxaan odhan karaa waa lagu degdega badanaa waxaa jira dhalinyaro fara badan oo waxyaabo maxay heday aan badnayn sameeya oo markiiba la xidho waxaan aaminsanahay jeelka ama dadkan meelaha goobaha lagu xidhayaa in ay kasoo faa'iidi karaan dhibaatadan ay geysteen dad wax ka badan geystay ee lasoo wareysan karaan wax badanoo maxay heday ay aaminsanaayeen ama ay wadanka ka aaminsanayeen ay ku nici karaan sababtoo ah qofkii marka uu wax yar sameeyo halkii ciqaab fudud laga marin lahaa haddii xadhig ama jeel abadaa loo jaro ama kiis kaloo maxay heday lagu qaado dacal kale laga eego macaaridnimo kale lagu qaado ama inuu cid garabka ku hayo cid soo dirto kale lagu qaado waxaan aaminsanahay in kiisaskaasi nagu badan yihiin maxay heday gobolkana aad mooday hadda inay kusoo badanayaan ma jiro tacadi lagu xadgudbo muxuu ahaa dadka rayigooda cabiraya haddii aanay dee dembi ku gelin haddii aanay cabirkooda dembi ku gelin oo aanay qof bini aadama xuquuqdiisa ku gudbin ma jiro xorriyatul qowlka meel lagaga dhacaa oo waxa weeye lagu xadgudbaa ma jiro taasoo kale dee waxaa la ogaan karaa qofku marka la ogaado waxa uu qoray ma cid buu ku xadgudbay oo xadkiisiibuu ka baxay mise xadkiisiibuu ku jiray waa arrin u baahan xaqiiqo iyo soo taabasho laakiin ma aha dee arrin u baahan mala awaalo lagaga jawaabi karo arrintu marka ay dacwo tahay oo qof xidhan tahay ee eedi ka dambayso ee la eedeeyey waa arrin u baahan soo taabasho laakiin arrin maha laga jawaabi karo mala awaal laakiin guud ahaan anigu waxa aan ku soo ururinayaa xorriyadul qowlku meel wanaagsan ayuu maray marka laga hadlayo cadaaladda marka laga hadlayo xal waxa ah inay dadku ku kalsoonaadaan sharciga ku kalsoonaadaan waxay soomaalida ku mahmahdaa gari laba nin kama wada qosiso cadaaladda la doonaya waxa weeye marka uu garsooruhu soo saaro xukun ee kii wax ku caddaadeen uu ku xukumo in dadkuna ay ku hambalyeeyaan oo dadku ay qaataan oo waxa weeye gari laba nin kama wada qoslise la qaato wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir anigu halkaa wixii ka cadaysataan baan xukumaya laabtiina waxa ku jira ilaahay baa og marka waxa weeye kii wax u caddaadeen marka loo xukumo in lagu qanco oo la qaato oo waxa weeye dadku ay u hoggaansamaan xukunka ay u hoggaansamaan guud ahaan intaasi daawadayaal waxaa ku eeg doodeena in caawa ku falaqeynaynay marin u helidda cadaaladda gobolka marka loo eego xuquuqda asaasiga ah dadweynihii kasoo qayb galay doodan ee ku sugnaa waan mahadsantii baan leeyahay sida sharafta iyo karaamada le aad uga soo qayb gasheen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu